ma ka mid tahay dadka ku xanuunsada cunista afurka ama wasaxuurta bisha barakeysan ee ramadaan? cuntadu waxay waxtar weyn u leedahay jirka iyo caafimaadka qofka, balse haddii aadan cunin si saxan oo caafimaad leh waxay khatar gelin kartaa xaaladaada caafimaad. haddaba waxaan doonayaa inaan wax kaga sheego 3 arrimood oo ay tahay inaad ka fogaatid xilliyada afuraysid ama waad suxurinaysid inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan. bismillaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. ramadaanul kariim dhammaan ummadda muslimiinta, gaar ahaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay dunida ka joogaan. weli waxaan ku guda jirnaa bisha barakeysan ee ramadaan. ilaahay hanaga dhigo kuwa acmaashooda laga aqbalo. kusoo dhawaada barnaamijka cuntada iyo caafimaadka ee bisha barakeysan ee ramadaan aan idinkuugu talagalay. ramadaanka fadligiisa waxaan si gaara kaga codsanahay in aad muuqaalka sheergarayso oo aad gaarsiiso walaalaha muslimiinta ee saa'imiinta si ay ugu faa'iidaystaan. sidoo kale noogu soo biir oo ka mid noqo asxaabta igu xiran si kuu soo gaaraan talooyinka caafimaad oo aan maalin walba aan soo gelin. si gaar ah waxaan soo gelin doonaa muuqaalo taxanaha intaan ku guda jirno bisha barakeysan ee ramadaan. sidoo kale xagga hoose ka bax qaar ka mid a asxaabtaada waad la jeceshahay in muuqaalkan ay ka faa'iidaystaan. hayloogin inaad muuqaalka laag badan siiso si uu dad badan u gaaro. mahadsan. haddii aan ku hormaro qodobka ugu horeeyo waa in aad la imaadaa hab cunis saxan oo caafimaad leh. rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay asigoo ka hadlaya aadaabta cunista: thuluthi lidacaamihi wa thuluthi lisharaabihi wa thuluthi linafisihi. yani calooshu waa in aad u kala qaybisaa qayb raashiin, qayb biyaah iyo qayb habaah. looma baahno qofka inuu si xad dhaafa waxa uu cuno ama ku afuro ama u saxurto. waxaa ka dhalan karo xaalada caafimaad. haddii aan u gudugalo qodobka labaad waa in aad ka fogaataa jiifka afurka ama wasaxuurta kadib. cuntada lagu seexdo waxa ka dhasho dhibaatooyin caafimaad oo aad u daran. waan ogahay cuntada inay tahay mid daal badan ay u qalanto in lagu nasto, balse waxa ka dhasho dhibaatooyin caafimaad oo aad u daran haddii aad la seexatid cuntada. waxaa wanaagsan 3 saac ka hor inaad cunto cuntada intaada seexanin si calooshu ama dheefshiidku oo cuntadu si wanaagsan ama waqti ku filan oo dheefshiido. waxaan u gudugalayaa qodobka 3aad oo ah qodobka ugu dambeeyo. waa in aad ka fogaataa jimicsiga afurka kadib. qofku waxaa loo baahan yahay cuntada markuu cuno inuusan ku seexanin oo wax yar uu ku socdo ama wax yar uu soo socdo si calooshi ama dheefshiidka cuntada si wanaagsan ugu burburiso. balse haddii aad samaysid jimicsi xad dhaaf ah sida orodka ama rucleynta ama wajiima aad aado, waxaa ka dhalan karo dhibaatooyin caafimaad sida in aashitada caloosha ay dib ugu soo noqoto qofka ama biyo kulul oo dib ugu soo noqdo. waxaa kaloo ka dhasha hingo iyo matag ama lalaba ayaa qaban karta qofka. waxaa wanaagsan in qofka wax yar uu socdo ama usan cuntadii ku seexanin, balse uu ka fogaado jimicsiga xaddaafka ah. fadlan hayloobin inaad muuqaalka aad sheergarayso oo aad gaarsiiso walaalaha muslimiinta si ugu faa'iidaystaan. sidoo kale noogu soo biir oo ka mid noqo asxaabta noogu xiran si ay kuu soo gaaraan talooyinka caafimaad oo aan maalin walba halkan soo gelin, gaar ahaan bisha barakeysan ee ramadaan. barnaamijka cuntada iyo caafimaadka aan ugu talagalay. muuqaalkana laag badan si uu dad badan u gaaro. intaas yaan ugu soo gabagabaynayo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.